بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا مركله يوتيوب channelka baraaqoonta عشر كيس تحت ayaynu ku jirnay waxaynu soo dhiganay marka qaybtii koobaad qaybta labaad waxaynu ku eegi doonaa inaynu halkii ka sii wadno abuuristii kharashka guriga gelayay gaar ahaan alaabta ama inventory-ga marka aynu soo kicino waxay aynu soo abuurnay casharka horreeyay ama qaybta ku horreysay nistaas iyo rinjiga oo labadiisa qaybood ah sawirka afarta qaybood baynu soo abuurnay marka sidaan hore soo sheegay waxaanu nidhi ama kuwan marka doonayso inaad kusoo darsato oo halkan waxaad tegaysaa baan nidhi list kadib waxaan ka tegaynaa halkay ku qoran tahay maxay item list marka waxaa kusoo baxaysa qaybtan marka laba qaybood baynu ku samayn karnaa inaynu shayga halkaa yaalla edit karayno oo in wax ka bedelo iyo in shay cusub samayno marka casharkeenii hore intii la socotay waxaan ku sameeyay editing ma ku sameeyay kuwa halka hore ku jira template-ka shirkadda marka QuickBooks soo sameysay casharka waxaan eegi doonaa marka inagoo halka ka sii wadayno ku soo darsadoono qaybo kala duwan inaynu bal abuurno qaar cusub oo kuwan ka mid ahayn marka waxaan leenahay halkay ku qoran tahay item ayaad farta u gelinaysaa waxaad ku dhufanaysaa new item baad u dhufanaysaa new item marka ku dhufato qaybtana ku soo baxaysa qaybta waxaad ka dooranaysaa marka halkay ku qoran tahay service tan oo kale waxa weeyaan inventory part other charts total waxa uma baahnin waxa leen waa service waxaan abuurna waa adeeg markaasaan hore soo sheegay halkaas aad sax saaraysaa kadibna shaygii ayaad abuuraysaa waxaan noogu xigsiin doonaa marka alaabtii gelisay guriga waxaan leenahay jiingad oo kale ayaa iyaduna kamid ah alaabta guriga gelaysa marka copy baan leenahay sidii caadiga ahayd copy baan leenahay halkaas ku soo copy-yeynaysaa halka marka ku soo copy-yeyso waxaan leeyahay halka waxaan ka dooranaa maxay kharashka alaabta ayaan halka ka dooranaa kharashka alaabta waxaan leeyahay marka okay baan siinaa wuxuu you must specify income halka afwan halka waa inaan dhaafin account-ka waa isagoo banaan ka dhaafin marka waxaad leedahay waxaan ka dhigaynaa construction income oo kale construction income kaas in ka dooranaa halka waxaan leedahay marka okay baan siinaa shay kale kusoo darsanayna cusub shay kale aan dejino si uu dhowr shay u gaarsiino waxa leeyahay marka kanina waa maxay isaguna waa waxaan ka soo qaadanaa jaajuur ba ka soo qaad jaajuur jaajuur ka soo qaad isagana waad copy-yeynaysaa halkana waad keenaysaa marka labada qaybood inaad mar walba description ka keento waa muhiim description-kaas hadhow wuxuu ka muuqdo inuu caawinayaa marka alaabtu ka muuqan doona haddii la yidhaahdo marka alaabta iibsano halkan waxaa leeyahay income ayaynu ka dhigaynaa halkan ama construction baad rabta leh construction income ayaynu leenahay waxaa kaloo doonanaa marka siliig isagana waxaan leenahay siliig guriga waxaa kaloo geliya oo kamid ah alaabta gelaysa waxaa kamid ah maxay waxaa kamid ah siliig halka marka intayna dhaafin waa inaad taa hore samaysaa waxaa kamid ah alaabta gelaysa guriga siliig saan hore soo sheegay marka waxaa muhiima inuu qofku uu soo diyaarsado liiska uu soo diyaarsado alaabta si aanay waqti fara badan uga qaadan construction income kaas kale aan ka dhig marka halka waxaad ku wada guraysaa marka liiska alaabta gelaysa ayaad ku wada guraysaa halka alaabta gelaysa marka guriga shirkadu wado ayaad liiskeeda halka ku wada guraysaa macnaheedu magacyadoodii ayaad halka ku wada guraysaa hadhow tirada quantity-ga aan soo qaadan doono kan waxaan leenahay chips inoo kale chip
gypsy oo kale ayaa guriga isaguna gelaya. Guriga waxa kaloo gelaya wax kamid ah alaabta gypsy kaasa gelaya isagana kusoo koobiyey. waxaa leenahay markaa taasna waa maxay, waa kharash. taasina waa kharash. tanna waxaan leenahay construction income oo kale, construction incomekaas iyada waxaa lahaa safe. waxaa kaloo aynu iyadana abuureynaa waxa la yidhahdo gradeka ama birta gelaysa guriga, birta guriga gelaysa. tan oo kale iska xidh tuko inoo soo qaaday. waxaa leenahay new item waxaa leenahay markaa iyadana waa service, iyadana halka sax saar. waxaa leenahay markaa tusaale ahaan grade oo kale. gradeka markaa noocyo kale leeyahay laakiin adiga garanaya. gradeka markaa gelaya waxaad soo qaadanaysaa un magaciisu baa imika soo qaadan, waa iska tusaale. gradeka hadhow dhowr nooc inuu galo guriga laga yaabo kala nooc ah. marka gradeka kolba nooc u noqonayo adigaa garanaya qofkii ku shaqaynayay. waxaan leenahay marka waxaa kaloo gurigaa gelaya waxa la ihahdo waxaa kaloo gurigaa gelaya waxaa kaloo gelaya albaabo. waxaa kaloo gurigaa gelaya waxaa kaloo gelaya albaabo noocyada doonaa noqdaan. hadhi waa laga yaabaa albaabadaas inay kala duwanaadaan, laakiin adiga waxa lagaa doonayaa un in horta magacu meesha kuugu jiro. magacun baynu abuuranaa meesha waa inoogu jiraa. magacu meesha inoogu jiraa. waxaan leenahay descriptions waa muhiim. marka albaabo marka tan waxaad leedahay oo halkan labada meelood ay ilaabin construction income oo construction income halkaasna waxa weeye kharashka alaabta. waxaa kaloo ku xigsiinaa markaa iyadana waa daaqado. waxaynu ku xigsiinaynaa maxay, waxaynu ku xigsiinaynaa daaqado ayaynu ku xigsiinaynaa. marka waxaan leenahay waxaynu ku xigsiinaynaa that's okay. timekuna waa muhiim. waxaan leenahay markaa waxaa kaloo guriga geliya waxaa kamid ah inaynu iyagana idhaahno waa daaqado ayaa guriga gelaya. marka halkii descriptionkii u samee waxaad leedahay markaa kharashka waa sax. halkana waxaad leedahay construction. kaas waa muhiim. labada meeloodna kusoo koobiyey si mar walba la soconay. iyagana inoogu soo koobiyey markaa safe. waxaa kaloo ku xigsiinaynaa markaa daberka guriga kale. waxaa geli kara markaa ciidan loo yaqaano daberka guriga lagu buuxinayo. marka iyaduna waa maxay, iyaduna waa shay kaloo guriga gelaya. ciida loo yaqaano daberka waa ciidan lagu buuxiyo guriga inta badan oo iyada si gaara markaa ayaa loo soo qaadaa. waxaan leenahay waa kharash. iyaduna waa kharashka alaabta ayay kamid tahay. halkana construction income bay leenahay. construction income waxaa kaloo aynu gashanayna wax la ihahdo stambarka. laba qaybood baynu uqeybin doonaa. stambar tinis ama stambar galaniska la ihahdo. labadu waa kala duwan. guriga waxa laga yaabaa inay intaasoo galo ama intaasoo tiniskaas ay galaan kharashka alaabta. halkan waxaad leedahay construction income baad leedahay. construction income labadaan inoogu soo halkaa inoogu soo koobiyey. waa muhiim mar walba sawirkaagu inuu degdeg aad wixii ku qabato. way ku caawinaysaa. waana muhiim qofku inuu kulliba computerka inuu wax ka yaqaano waa laga maarmaan. waxaan leenahay kana stambar galanis. halka inoogu soo koobiyey labadooda si waa muhiim. markaa saan hore soo sheegay descriptionkaas hadhow ku caawinaya markaan guriga markaynu sameynayno wayna caawin doonaa hadii la idhahdo. waxaan leenahay construction income iyadana waxaan leenahay safe. waxaa kaloo sameynaa waxa guriga geli kara waxaa kamid ah
masaabiir guriga waxaa geli kara iyadana waxaa geli kara masaabiir marka waxaa masaabiirta noocyada kala duwan masaabiir marka masaabiirta kale iyada lafteeda noocyo kala leedahay waxaa garanaya qofkii jaarinta inta badan aad taqaana waxay leedahay noocyo badan bay kala leedahay masaabiirtu noocyo badan bay kala leedahay laakiin inaga waxaynu kasoo qaadanaa waa iska tusaalahan masaabiir baynu kasoo qaadanaa masaabiir waxaasna waxa construction income tusaalahan construction income kaasoo iyadana wax ka dhigana waa muhiim marka inaan halkaan dhigan waxaa kale in markaa kusoo gabagabeyneynaa kolley waxa laga yaaba waxyaaba badan inaynu ilownay waxaynu markaa qeybta kusoo gabagabeyneynaa inaynu iyadana shay kale ku darno oo ah biyihii geli waa muhiim biyihii guriga gelayay biyahaas markaa hadhow kolle waxa laga yaabaa inaynu foostooyin ama ku qiyaasno ama tangi oo kale lagu qiyaaso marka iyadana waxaan leenahay waa biyihii inoo geli guriga waa biyihii guriga gelayay noo soo koobiyey waa biyihii guriga gelayay iyana waxaan leenahay intaa ku jooji marka intaa markaad saa u sameyso runtii intaa aynu sameynay marka alaabta waxa weeye albaabo saasi markaa isugu wada xigaan marka saad arkaysid kulli waxyaaba fara badan oo ilaabina way jiraan marka waxaa muhiima un inta qofku markaa uu odhan karo way gelaysaa inuu markaa uu abuuro marka halkan waxaan ku abuurnay casharka qeybtiisa labaad waxaan ku abuurnay kharashkii alaabta intii inooga dhinan casharkii hore waxaynu markaa bilaabi doonaa hadii la qeybta kharashka gacanta guriga gelaysa aynu iyadana gelin doonaa casharka intaasaynu qeybta labaad ku joojin doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu